kadan waa la socotay dhammaantiina qof aniga xaaskayga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay arintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheegay waaye marka hore saa idin cadeeyay waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jiray aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaalna leedahay nin ay kala tageen ama asqabi ma jiro ilaahan ku dhaartay ilaahana ii jeedo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فاتوش channel سودا وهذا ركتي وبارتو مقصود الحمد لله إله ربي وقف كستو حنون صنع عافي كوي عاف ما تقبنا عاف ما تكون سيادة والله بالله وشك بارتو إنا سو كير دورو ودمات كتو the end إن كستون ربين دمات to the end إنا جارسيا what is stop it here right مركا شيء كذا وهذا ركتي ويلك سو أحد مركز ما أنت بتلاقيستي قفك يقول قصرك بدنا يصدر بحاجة متقان قبل بقى يصدر تي مركي يصدر تي ومع اسم هذا الله بحيث رفتو شيء هداد أركتيد بيتر أنا كواوين أو هيوين أو عيرسين إن من قال بريس إن القرآن صار ومعلنا وقصر بك دتك قفبهم نوع بكتر مامي الحمد لله ورتقفك استعاف ما تقبل إلى عاف ما تحسيه. السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحاي مادهي aad u qurux badan waxaad ka heli kartaa store-kana online ka telefoonka naga soo wac ama snapchat-ka igala hadal sidoo kale waxa imaaday gooyaashii sariiraha iyo miiska qadada alaabtii la saarayay shibina waan sameynaa insha Allah gabadha waad aragtay wiilkii wuxuu soo istaagay aniga gabadha maba ogeynba wixii aan intaas isla adkaysan because markii sheekada gabadha wiilka lagu yiri nin baa qaba uu ku adkaystay fahmaysa uu ku adkaystay wuxuu yiri maya way ku soo dhadhagayaan dadka isku keenayaan dadka yacni waxyaabo badan ba isla keeneen tiktokiyo badan ba isla duubeen waxyaabo badan buu ku hadlay marka waan understandable dadka qaarkood way fahmayaan so for example qof markuu qof xiriir la sameeyo wiilka hadda lama eedayn karo qof xiriir la sameeyo qofkii wax u sheego dad waxa jira easy dadka ku aamina waana lagu aaminaya gabadha xiriir bay la yeesheen doo yacni yaa meesha la iska barta farku sii mudan tahay haddana qof markuu qofku xiriir la sameeyo isfahmaan wuxuu u sheego buu iska qaadanaya soo lama yaabin aniga because haddii maanta gabadha intuu soo booda tira waa ma lay qabo waa bentood muxuu sameynaa waa lagu qabo mu dhaha maya hal xabaa u furan inuu investigation samay baarid early inuu dhaqso sameeyo ahayd you know walaana kana soo hada maxaa jira intaasna inuu weydiinayo laga yaabo cidna ma kale maanta kitaab jaamacu soo qaatay wiilkiisa u aragteen wuu hadlay wiil yar waaye dadku day iska yaraan karaa ku da'weyn ah haddana laag ani xaggayga fatishaan marka la fiiriyo wiil yiris baan ku tilmaamay aniga wuu hadlay wuxuu yiri gabadha aan ma ogeen in la qabo ma ogeen markii wiilka kale oo afadhiya yiri waliba investigationka ana baarida sameeyay because ninkan wuu yaabanaa gabadhi waad aragteen way noqotay maanahooda cajirad buu soo gariyay gabadhi noqonaysay waa la yaab waa wax la yaab leh aan dhihi karno waa wax lagu cimri qaadanayo because gabadhan cid kasta hadda dad taxi messages dira waxa gabadhan ama dad kale u dirayaan arkay waxay dhahaan gabadhan waa naqaana aniga meel kasta akhri waa aqaana waa wuu qabay ninka horta cid nin naag saacada isqabaan saacada isfuran cid ogaan karta mal ninkii qabay iyo naagtii uu qabay ninkii naagta qabay iyo naagtii la qabay unba ogaan kara mugta gabadhay ogaan karta taas horta cid isku haysata mal cid haysa gabadha ninkan masti qof kasta wuxuu dhahay inuu qabayn karo kuma dhaaran karo because min kasta la isfuri kara taas aad qasama ina nin islaam naagsan guriga dhex taagnaad laakiin mid la isku haysta waxa waay inay gabadha familka dhanba in karto oo ilmihii in karto uu ninkii in karto bas baa la isku haysta qof kale wax kale ku haysta mal ilaa hadda taagan qof kale wax kale ku haysan kara mal wiilkii qabay bas baa sheegi kara una dhaaran kara dhihi kara waa qaba taas cidna ma oga soo marka laba nooc baa loo kala qaybiyay marka mid oo ah gabadha ma xanuun baa u geeyay inay gabadhaas intay soo istaagto maanta dad baa waxay dhahayaan arkay waxa jira waxa dhaw xanuun dadka ku dhaca markuu ku dhaco wuxuu u celinaa yaraantii markuu u celiyo wixii dhan oo kale ay hilmaamayaan oo wixii dhan oo kale inkirayaan horta sheekadii sixirka meesha I think way ka bixi doontaa because wax sixir la yiraahdo wiilka hadduu dhaartay
waxay ku tusaysaa inuusan waxna u sixranin waxna u samaynin you know like siduu sheegay ma fahmaysaa taas ani for sure waxaan qabaa sixirka meesha ka baxdo because gabar ordaysa u maad wuu guursaday America Europe uga imaatay America ma Europe uga imaatay qof Afrika jooga wax waa Chinese-kiisu ka faa'iideysana uu guursanaa wax kasoo sameeyay dan arrintan ku soo baxday that is the ani ahaanteeda saas u arkaa soo wax sixir la dhaho meeshaas bataatan ma yeelan waa fikradeeda waa igu diidi kartaa laakiin hadda markii sheekada uu sheegay gabadha sheekada ay samaysay wax sixir la meesha ma yeelan okay xanuunka soo haray Allah baa nagu xanuunka marka gabadha aragti la wareysanayo gabadha jukatay ku dhacday ma la dhihi karo xanuun juk ma la dhihi karo because she remembers waxa xasuusanaysa because ninka waa aqaanay tiri uu ikeenay على حال وشيك الله يابله أنا مشور وحيابة كم معجزة بدن أيام مركز تدعى لكن وح إذا تم معجزة كطا حديك وراس حسوس تيدا إذا شوكتو عادي تهاي ويل قبقتك ويل كركورستي يعني دينيا بيبا يعني دينيا بيبا أيضا معجزة دعى دينيا بيبا وحي كطا وحكلا بكوس أنا ما أنت وحي أقول رسول كنا حمحد وحي أقول رسول يقص دعوانا اللي هو ده وحي أقول يقص دعواحد أن كتشري يقعد إماجي ولا صدور كصبح بل إماجي تقول كصبح دونك قبين أفري بس أوكي وركو صباح كستوى لك ويلك وقرصن كان لكن قبل أسأله المهي ده سيء عرفتي وديدي وحي ugu horeeyay marka cajalada la isoo diray walaad minidii waxay ku jirta daqiiqada yar bis ku jirta cajalada marka la isoo diray oo dhageysanay wiilka hadalkiisa erayga ugu soo hordhacana waxay imagine gabadha sadii uur yarato Allahu akbar wallahi bilaa wax kasta ilaahay wardi waa qafuur raxiim hada gabadhaas ay xanuunsanta Allah caafiyo ilaahay caafiyo because qof haduu xanuunsan yahay gabar kale hadda waxaan arkaa Allah caafiyo ka soo xalan daawanayo hooyada caanis oo de ku jirta in meel ku jirta kulli taleefankeedii haysata waa dareemaysa qofku wuxuu daldalayo marka qaar ku caadi u mooday waxa sirada warkan say ku xasuusanay say ku dhahay hadana marka qaar ku arka gabadhiina qofka maskaxda laga galay laakiin waxa ajaa'iba gabadhi family samaysatay ninay samaysatay way duushay way tagtay way baxday wiilkan haduu ogaan la waxa iga dhaadhicida aniga yaa sax gabadhi wax buu ku sameeyay laakiin waxa bak ma sameeynin haduu sheekada intuu eedo wacadeer wax wixii dhan la soo ogaado soo rumaysay oo hadana soo fariistay kitaab jaamac maray waa la aaminayaa laakiin gabadhi laftirkeeda caawina u baahan tahay iyada xataa cideeda ay hubna caawiyan wixii kale isweydiin jiray waxa ahayd waay gabadha cideeda u soo hadli waan mar ay u soo hadli waan dhigi waan gabadhan waa xanuunsan tahay ma ahan qofkii aan naqaanay xanuun baa jira mar ay u soo hadli waan dhigi jiray ma gabadhan ninkaana qaba waan ku ogeyn in ilmahaana dhashay waa ya soo adduunka qof kasto aan guri kugula nooleen ama aan kula joogin is story behind it so waxaan hubaa oo hubaal ah oo soo bixi doonta in hubaa in gabadha laftirkeedaba nolosheedaba story ka soo baxayso because yani waa dareemi kartaa story kale inay soo socoto oo tan ka sii weyn oo dee wax kale geli doonta isaan ku ekaan because qof kasta oo nool bini aadana family buu leeyahay wax kastuu leeyahay korid buu leeyahay meel ku soo barbaaruu leeyahay ya so ya anaka waxaan u awoodnaa inaan u duceyno in laga duceysto in ilaahay waxaasoo kale u sunato si mucjisooyinkaasoo kale u nutasin horeyna u dhici jirta ogaadayaa waxaada cusub maahan waxa u soo taagnay dad intay kasoo tageen qisaasna waa la ii soo qoray midaan ogaan way ahayd dad intay kasoo tageen wadankii Amerika imaadeen markay imaadeen ya dad kale iska raaco family kale iska samaysta way dhacdaa soo ilaahay wax weyn waay dadka ma dareensano inay wax weynta xarga qofka uu xiranayo qof uu guursanayo inay marka qaar ku sheedaanka intuu u cusbeenaysiyo uu uga dhigi karo wax fudud inuu ka baxo laakiin diiniyan ay ahayn wax laga bixi karo ilaa qofkaas intuu ku furo caad u kala tagteen ma ogeyn ama qofkii la waayo yani diinta meel loo maray leedahay in iyo qofku waa guursay waa ku nacay iska dhigi karo marka gabadhaas u duceeya ilaahay caafiyo waxaan dhihi karnaba
كل وحنا صوب عادي مركان ويلك هذا الكيسي دقيست قبلنا المها وايد شنو قيسوا وعي ولا وعي 100% ويلك سوارو ما يسوق وهلا دقنا شها مسكين ما وين صوب حل وين قبتين كيس كم ورقة لكن قبل إنه المها هذا الشيء قبل هبلا ضلوا بس قبين يا بركو دعي إن شاء الله أنا متاسفة هذا القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.